أدي أدو مع سنتين runtii dabcan sidaad la socotaanba waqtiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hogaaminaya dalkan Djibouti ku sugan kulamo aad iyo aad u ballaaran ayay maanta ka qayb galeen waxaa ugu muhiimsanaa xilkii madaxweynaha dalka Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha dalkan iyo mas'uuliyiin kale waxaa ugu waaweynaa oo laga hadlayo arrimaha ammaanka iyo iskaashi dowladda Soomaaliya ay kala yeelato dalka Djibouti dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka arrimaha oo dhan waxay qayb ka yihiin runtii Soomaaliya maadaama hadda ay muuqato rajo fara badan 22 sannadood kadib ahmiyadda ugu weyn maaragtay dowladaha dariska iyo caalamka carabta ama dunida inteeda kale waxay tahay sidii dowladda Soomaaliyeed ay wada shaqayn buuxda iyo iskaashi iyo kaalmo intaba ay uga heli lahayd si dalku dhibaatadii xooganaa ee uu soo maray uu uga baxo insha Allah waxaan rajaynaynaa in kulamadan oo dhan ay maaragtay yihiin kuwa dadka Soomaaliyeed waxyaabo fara badan ay ka faa'iidaysan doonaan mustaqbalka dhow safar kale oo maaragtay booqasho rasmi ahna ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku tegi doonaa dalka Yemen iyadoo hawada leeyahay maalmaha soo socda ku saabsan cashada halkan caawa ka dhacday waxaan ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa casho sharaf u sameeyay wafdiga madaxweynaha Puntland Mudane Cabdiraxmaan Faroole iyo madaxweynaha lafahantiisa oo deganaa hoteelka waxyaabo aad iyo aad u fara badan ayaana lahaantii muddadii cashada lagu jiray uga wada hadlay gaar ahaan ahmiyadda ay leedahay in dadka Soomaalidu ay laabta isku furaan oo ay ka wada hadlaan waxyaabaha mararka qaarkood sunnada ama waxyaabaha la isku ay tahay in la iska qanciyo ama ay tahay in la isfahamsiiyo kulan aad iyo maaragtay muhiim ayuu ahaa dowladda Soomaaliyeed mowqifkeeda waa arrin aad iyo aad dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka danteeda ku jirta oo ah in markasta dadka Soomaaliyeed isku soo dhawaadaan in dhibaatooyinkii dalka dhacay markana dib loogu noqon in burburkii dhacay laga gudbo iyo in is-afgarad iyo wada hadal iyo isfahan wax kasta oo jira lagu dhameeyo dabcan kulamada gaarka way jiri doonaan weli wafdigu maaragtay ra'iisul wasaaraha halkan ay ku sugan yihiin maadaama madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa halkan ay joogaan wax aad iyo aad muhiim ah weeye in mararka qaar kulamo gaar la yeesho oo si hoose la isugu weydiiyo Soomaaliya iyo halka ay u jihaysanayso marka aad iyo aad adiga maadsan ra'iisul wasaaraha intii uu joogay ma jiraan mas'uuliyiin ama safaarado kale oo dalalka shisheeye halkan ay ku leeyihiin oo uu la kulmay ma jirtaan طبعا سفارة فرقدان oo dalkan fadhigooda ayuu la kulmay safaaradda Yemen ayaa ka mid ah oo maalmaha soo socda ra'iisul wasaaruhu uu booqan doono magaalada Sanca safaarada kale oo runtii dowladaha dariska ah iyo kuwa caalamka waa jiraan iyo hay'ado kale oo maaragtay caalami ah dhammaantoodna waxyaabaha ugu waaweyn ee lagala hadlayo waa xilligan iyo jihada Soomaaliya ay ku socoto cid kasta iskaashiga lagala sameeyo iyo waxyaabaha ugu aadan marka waa dabcan tirada xubnaha wafdiga ra'iisul wasaaraha bal faahfaahin naga sii iyo xilalka ay kala yihiin wafdiga xubnaha xukuumadda ee ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga وزير الدولة arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiir ku-xigeenka khayraadka iyo wasiir ku-xigeenka ganacsiga waxaa kaloo iyana jira xubno fara badan oo dabcan si weyn uga agdhow wafdiga ra'iisul wasaaraha oo ay ka mid yihiin safiirada Soomaaliya oo fadhiya dalalka Djibouti iyo Ethiopia marka wafdiga lahaantii intaas ay hadda ay ka koobnaayeen. Okay, aad u mahadsan.